$26,000 ayaa dowladda Puntland iyo ganacsatadu ay ku abaalmarinayaan ciyaartoyda xulka Puntland oo shalay u soo baxay finalka koobka maamul goboleedyada dalka ee ka soconaya magaalada Muqdisho waxaana wali magaalada Garowe iyo guud ahaan magaalooyinka waaweyn ee Puntland ka soconaya dabaaldegyo shacabku ay dhigayaan markii xulka Puntland ay u soo baxeen finalka koobka maamul goboleedyada sanadkii 2016 ayay Puntland qaaday markana waxay taagan tahay finalka wariyaha telefishinka RTN ee magaalada Garowe Cabdiqafaar Cabdirashiid Maxamed ayaa ka waramay wali waxa soconaya dabaaldegyada iyo ballanqaadyada abaalmarineed ee loo sameeyo xulka ciyaartoyda Puntland kadib guushii ay ka gaareen ciyaartii dhex martay Puntland iyo Banaadir ee ciyaaraha maamul goboleedyada iyo Banaadir taas oo gabagabadii ku soo idlaatay 1-0 oo ay guushu ku raacday xulka Puntland waxay ahayd ciyaar si weyn loo wada sugayay natiijada taas oo u dhigantay kama dambaysta koobka ama fiinaalaha marka la eego xiisada iyo xifaaltanka u dhaxeeya labada koox iyo labada taageere Ahmed Jaamac Jawle oo ah xoghaynta wasaaradda maaliyadda Puntland ayaa sheegay in ciyaartoyda la siin doono abaalmarin lacageed oo gaaraysa $26,000 Mareykanka ah taas oo ay ku muteysteen guusha ay ka soo hooyeen ciyaartii galabnimadii Isniinta waxayna kor u qaaday rajada hanashada mar kale koobka maamul goboleedyada malaayiin reer Puntland ah teamka uu safan xulka Puntland runtii taageero badan ayaa loo fidiyay ha noqoto ganacsatada ha noqoto dawladda Puntland ha noqoto shacbiyadeeda aad baan waxaan raalli uga nahay maqsuudna ku nahay heerka ay soo gaareen runtii laba habeen ka hor intaysan ciyaarta shalay ciyaarin ayaa teamka aan la hadlay maamulkiisa wax kalena ma ahayn waxaan kala hadlay in teamka la dhiirigeliyo waxaanan u ballan qaaday in $26,000 ala player loo raadinayo $1,000 oo lacagtaas mas'uuliyadeeda anaa qaaday laakiin keligay ma bixinayo lacagta waxay kala imaanaysaa dawladda qayb baa bixin doonta oo shakhsiyaad dawladda kamid ah qaybna ganacsatada iyo shakhsiyaad private ayay ka imaanaysaa qaarna anaa bixinaya hadii aan leedmo lacagta muddo 3 cisho gudaheeda lagu bixin doonaa hadii aan leedmo mas'uuliyadeedana anaa gacanta ku haya qaar kamid ah dadka xeeldheerayaasha kubadda cagta ah ayaa saadaaliyay in mar kale Puntland koobka qaadi karto iyagoo sabab uga dhigay qaab ciyaareedka ciyaaryahanada iyo shaxda macalinka oo hadba shax cusub ku soo galaya garoonka taas oo noqotay mid ku adag in ay fahmaan si ay isaga difaacaan macallimiinta kooxaha kale Cabdiqafaar Cabdirashiid Maxamed RTN TV magaalada Garowe